waxaa weli deegaanada Puntland ka soconaya dibadbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha cusub mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. deegaanka cagaaran degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa lagu qabtay dibadbax lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ugu horeyn waxaa hambalyo iyo waliba bogaadin u diray madaxweynaha gudoomiyaha deegaanka cagaaran. waxaan halkan caawa isku soo baxnay soo dhaweyn aan ku soo dhaweynayno madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya محمد عبد الله فرماجو waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow wanaag sharaf ciisi iyo caziim inta ku soo dhawow baan leenahay waxaan kale oo ku rajaynaynaa guul madaxweyne guul. intaasi kadib waxa iyaguna hambalyo madaxweynaha u diray bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka cagaaran. madaxweynaha Soomaaliya oo Ilaahay soo saaray oo aan aaminsanahay in uu yahay kii quraanka lagu sheegay وإلهي ويري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كي عمل كيس الله أقبلي وصور الله أقبلي رول كان جعل كيس الله كياني ومدنا عدالة إنصاف يسنان وحقوق غايي إنه يهيب أنقصد ويننا مدحوينه hambalyadan waxa wada dhammaan bulshada qaybaheeda kala bedelan madax iyo mijaba waa taageeradaadii waxaanu leenahay ku soo dhawow noqo aruurtii dhallaankii hooyakii daryeela noqo ciidamada dhalafay kii daryeela noqo dunida inta saarankii isku duuba noqo hawadiyaanka lagu qabaa hadafkaaga sare allo aysan habaabino hankeeda sii camalyo kaaga barni xilka lagu dhibo oo culus midka ku guulaysta ilaahay inuu ka dhigo cadaaladda inaad midka cadaaladda ibn aadamka ilaahay wax deeqsin kare cadaaladda midka ku shaqeeya Allah ka dhigo. waxaan leeyahay hambalyo magacaagu waa ism wanaagsan اسم وحوي محمد بالغ مقعاب مقع نبي محمد اسم كيس والله وحن كل دردار ما يا عدالة وحن كل دردار ما يا إنصاف وحن كل دردار ما يا قرصور وحن كارم بطار ما يا إنصاف ونحسن إن أتكون واتم إن هذاك عدالة بعد عدالة دعسان كل دردار ما يا وحن كل هاي عدالة في نبي محمد من هو والله كاكر محمد عبد الله فرماجو waxaan halkan uga dirayaa hambalyo waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inuu u fududeeyo xilka loo